Somaliland gaar ahaan waaxda dhulka biyaha iyo saadaasha ee wasaaradda beeraha Somaliland ayaa warbixin ay soo saartay 24 saac u dambeeyay waxay ku sheegeen in Somaliland gaar ahaan gobolada bari ay ku soo waajahan yihiin roob lixaad oo dabaylo wata waxaana warbixintaasi baaq dheer ugu direen bulshada deegaanadaasi ku nool. Cabdiqani Yuusuf Galed agaasimaha waaxda dhulka biyaha iyo saadaasha ee wasaaradda beeraha Somaliland ahna waaxda soo saartay warbixintan oo maanta xafiiskiisa aanu ku booqanay isagoo ku guda jira howlihiisa shaqo si aan wax uga weydiino aaminta roobkani soo gaadhayaan deegaanada Somaliland saameynta ay yeelan karaan dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi iyo qorshayaashooda ka xukuumad ahaan uga meel yaala ayaa ugu horeyn ka warbixiyay roobkii toddobaadyadii la soo dhaafay Somaliland ka da'ay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim walaalaad aad baa u mahadsantihiin. Alxamdulillah horta runtii waxa weeyaan labadii week ee la soo dhaafay runtii roobab aad iyo aad u fiican ayaa sidii horeba aan u baahinay ama horta waxa weeyaan baraha bulshada iyo runtii waxa weeyaan website-da aan hore u marinay iyo warbaahintaba ayaa runtii waxa weeyaan runtii dalka ka da'ay runtii roobabkaas waxay ugu badnaayeen gobolada Sanaag, Saaxil iyo Awdal runtii roobabkaas kulli runtii khasaare way geysteen oo runtii waxaan oran karaa daadadkii iyo runtii waxa weeyaan runtii inkastoo roobku Awdal siiba xeebta ka da'ay uu ahaa roobkii runtii waxa weeyaan uga xadiga badnaa intii dhowr iyo 10 sanadood ahayd runtii waxa weeyaan roobka iyo cimilada iyo aan la soconay runtii waxa ka da'ay geerisa iyo meesha la helo yacado waxa runtii ka da'ay roob 170 mm ah weeygi la soo dhaafay runtii roobkaas ilaahay wuxuu khasaare inta ka badan buu geysan lahaa balse ilaahay wuxuu inoogu sahlay wuxuu da'ay 24 saacadood bal haddii uu dii lahaa 6 saacadood ama 4 saacadood ama 12 saacadood runtii waxa weeyaan khasaare inta ka weyn ayuu geysan lahaa runtii meelaha kale oo ka da'ay gobolka Togdheer oo kale Sanaag runtii waxa weeyaan iyo Saaxil roob aad u yahay runtii wanaagsan ayaa runtii waxa weeyaan ka da'ay waxa uu dhanka kale agaasimaha Cabdiqani uu shaaciyay in deegaanada bari ee Somaliland 48 saac soo socda ay ku soo waajahan yihiin roob lixaad oo dabaylo wata inkastoo uu sheegay in dabaylaha ugu badan aanay soo dhaafi doonin Puntland. waxaa la filanayaa haddii la yiraahdo sidaad la wada socotaan runtii duufaanta ka qaraxday badweynta Hindiya runtii waxa weeyaan inay xoogaa roobab ah oo runtii aad iyo aad u fara badan ay soo gaaraan gobolada Sool, Sanaag iyo runtii waxa weeyaan qaybo kamid ah gobolka Togdheer waa gobolada bariga ee Somaliland guud ahaan runtii waxa laga yaabaa duufaantaas dabaysha ay wadato iyo roobka xoog leh ay wadataa 12 saacadood ee soo socda inay soo gaaraan dhul xeebeedka marka waxa weey runtii Puntland waxa laga yaabaa gobolka Togdheer qaybo kamid ah in roob fiican oo runtii waxa weeyaan aad xoog u soo gaaro balse gobolada galbeedka Somaliland waxaan iyaga u rajaynaynaa in roob habuur oo iska fiican runtii waxa weeyaan tumay u badan ama roob lagu diirsamaado runtii waxa weeyaan ay soo gaaraan laakiin agaasimaha roobkaas sheegtay inay ka imanayaan dhinaca Puntland in gobolada bari ee waliba xuduudda xiga wax dhibaato baaxad loo hadda ka digaysa ma u geysan karaan runtii waxaynu filaynaa qiyaastii roob 100 mm ka badan oo runtii waxa weeyaan dhulkaasna waa dhul nugaasha oo kale marka loo eego waa runtii waxa weeyaan dhulka gudan iyo dhulka daadadku maraanba waxaan jecelahay inay daadad fara badan mari doonaan dhulka gudan inay biyo gali doonaan dhulka ma aragtay runtii waxa weeyaan aynu oran karno muxuu ahaa waxa wadooyinka oo kala ka go'an ama buundooyin bay leeyihiin oo waa dadka dusaan inay biyo ka buuxsami doonaan baan rajaynaynaa waxaad sheegtay in 48 saac soo socda ay roobkan soo gaarayaan deegaanada Somaliland 48 saac xilli ma ka bilaamayaan oo bulshada cadeynaysa runtii waxaan oran karnaa maanta waxaynu ku jirnaa waa Arbaca khamiista runtii waxa weeyaan waxaynu oran karnaa khamiista gelinkeeda dambe jimcaha iyo sabtida saddexda casho runtii waxa weeyaan roobku haba ugu bataan maalinta bisha 4teeda ilaa iyo maalinta bisha 5teeda ha ugu bataan runtii waxa weeyaan ay roobkaas u dii doonaan marka runtii mar walba waxaan jecelahay oo aan dadka iyo bulshada u sheegnaa in roobkaas runtii waxa weeyaan laga digtoonaado siiba meelaha gudan dadku ay iska ilaaliyaan iyo meelaha daadku maraan sidii maalintii dood ka dhacday gobolka Sanaag iyo gobolka Awdal oo kale agaasimaha marka laga tago fariintan u dirasaan hadda bulshada rayidka in laamaha dawladda ee xukuumadda hadda aad ka tirsantiin ma la wadaagteen arintan runtii waxaan jecelahay warbixinta waanu qaybinaa saad aragtay waxaan ku qaybinay social media website-dada iyo emailada ilaa madaxtooyadan u dirnaa runtii waxa weeyaan marka laamaha dawladuna laan waliba shaqada dhinac bay ka soo galaysaa haday caafimaad tahay haday xoolo tahay haday dad badbaadin tahay haday ummad wax siin tahayba laan walibana shaqadeeda iyo marka waxa cid wixii ka khuseeya
anagu waxaanu kaliya runtii ku leenahay inaanu warka baahino oo xafiiskaygan wuxuu qaabilsan yahay inaan la socodsiino biyada wixii iska bedela iyo dadka marka wax weeyaan wixii la filayo ee waxyeelo kule iyo wixii dadka waxtar u laba inaan u sheegno si ay bulshada marka wax weeyaan labadaba ugu diyaar garoobaan وخضر إسماعيل محمد خضر دنبالي عبد الرحمن قاعيرو ورركم مقبهية عالمي قبضة عستوان فور تي في